السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوش نقود doona كورس kaasoo soconaya muddo hal saac. Marka muddada hal saac waxaan ku baran doontaa AI toolskiisa oo dhammaystiran. Marka kooraska uu soo wada koobay oo kooras kooban weeye. waxaan leeyahay daawasho wacan kooraskana daawada insha Allah. Wassalaamu calaykum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan bilaabi doonaa insha Allah qaybtii ugu horeysay koorskeena. Marka waxaan kula socodsiinayaa in aan u sameeyo muuqaaladeeda playlistiga waad ka anfici doontaa oo wixii aad u baahnayd oo dhan ayaad ka heli doontaa playlistiga hadday noqoto motivation hadday noqoto waxaad barinaysid xataa koorskan yani waxaan u sameey jirto si aan ugu khalkhalin. marka insha Allah waa inaad ka qayb qaadataa oo la socotaa sidaan ka dhigay. marka waxaan leeyahay daawasho wacan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا أخيرت معك سجلتان ما أنت مقال كين وحوها إن كورسكي قيبتيسي كواد قلنا مركا يعني كمبيوتر كمدونينا ما تكرح قلنا يعني شاشة أيان صوير يرينيها إن عكلا يعني قلت كورسكو إيو وحيا بوتي طبعا كورسكي قيبتيسي كواد وجاي جي بي تي وانا بروجرامكو وعسن مركا لغا هلايو AI marka programkan yani wuxuu u baahan yahay barasho sida uu leeyahay lahayd iyo waxyaabaha ku qaban lahayd shaqooyinka sida uu qaban lahayd experience-kayga ama yani sidan u garanayo ayaan ni bari doonaa. marka horta qodobka waa maxay ChatGPT waa conversational app ama yani waa response app waa ababka lagu programmiyay inay dadka u jawaab celiyaan sida doonto baahan qaatay. marka wuxuu soo baxay ChatGPT 2022 waxaana soo saartay shirkadda OpenAI. labadan nin ayaa soo kala saaray kala dhaho Sam Altman iyo Elon Musk. waxay la caawiyeen shirkadda OpenAI part kamid ah. markii dambe in ay u kala hadheen mooyaan iyo in kale intii dambe ay ku kala hadheen imka Elon Musk heshiiskii uu kala baxay. marka qaybtaas waa qeexitaankii ChatGPT muxuu yahay sidee shaqo lagu qaban karaa ChatGPT. sida horta shaqo lagu qaban karo ChatGPT waxa weeye in uu yani ku jawaabayo sida doonto baan qaatay. shaqooyinka lagu qaban karo waa shaqooyin badan. imika Leonardo AI markaa soo gashay Leonardo AI hadda markaa soo gashay waxaad arki kartaa in yani uu qoraalku weydiinayo sidii aad uga jawaab lahayd ama yani sidoo oo ay ka lahaa sawirkaaga. marka uu qoraalka ku weydiinayo prompt waa hadalka lagu qorayay waxaad weydiinaysaa horta ChatGPT waxa dhahaysa hadalka noocaas iyo qor kadib ayuu ku qorayaa. marka saas uu shaqeeyo isagu iyo waxyaabo kale oo badan oo ku fiicay. marka laga hadlayo ka tagtikayaasha waxyaabahan aanu ka isticmaalo inkastoo aan scriptiga iyo waxaas ku fiicnayn ani badanka waxaan isticmaalaa Huga waa soo dakiskin ugu horeeyay intaasan badan ka isticmaalaa iyo thumbnailkaygu sidoo ay ka lahaa. marka si kale oo aad u isticmaasho ChatGPT aday ku khusaysa students haddaad tihiin students ama yani dad wax barta ChatGPT hadda wuxuu ku soo daray in yani picture ka soo qaadid hadalkii baad picture ka soo qaadaysaa ama yani wixii lagu soo qoray accesskii ayaad ka soo qaadaysaa picture waanu kaga jawaabayaa su'aaliyo dhammaystiran. haddaan soo guda galno aan eegno horta mid walba practice buu baahay. marka theory iyo practical buu kala qaybin doonaa. theory-ga ayaa maanta inay kala sharaxaya ChatGPT imsa version ayuu leeyahay ama yani imsa nooc buu leeyahay ChatGPT. horta ChatGPT marka laga hadlayo noocyadiisu aad uma badna. marka waa laba nooc waa ChatGPT 1kii ugu horeeyay la soo saaray iyo ChatGPT 4 oo ah ChatGPT-ga ugu fiican ee aad isticmaali karaysid kaasoo fuliyo ku yar samayn kara oo aan tiidada saasi faahfaahinayn image generation leh yani laakiin bishii waxaad qaadanaysaa $10 bad bishii bixinaysaa. qaybtaas waa lacag laakiin qaybta free-ga waxay leedahay AI-yadii iyo waxyaabaha responses-ka. marka haddii tahay content creation iyo wax kale waa marka adiga uu ku anfacaya sida tahay ChatGPT horta waa waxyaabaha laga maarmi karin. marka adi iska ka anfacaya way hadda waa iska cabe
su-aasha hadda isweydiinta leh waxa weeye ChatGPT ma jiraa program ka fiican horta ChatGPT program ka fiican marka dhanka AI la dhaho waa programyada ugu caansan ChatGPT waxaan soo baxay muddo hadda almost 2 years ku jira yani wuxuu soo baxay 2022 dhamaadkiisa 2 years and half ku jira marka muuqaal baa jiraan khatartiisa xiisa kaga leeyahay hadda ma guda kale khatartiisa xiisa يعني هذه و فرشن في عم بصوت GPT 5 له وكسي في عم فرشن هذه هراء يعني all in one tools أيو نقطنا فرشن كاس لكن هذا مسير حكي قال يسون نقطنا بدي أساسي هذا واحد موته مركا هذا واحد برينا إن شاء الله حنريد أن قيبتي تيريها قيبتي برتكال كعاون كذا وقالت واحد سيراني هل صح كليك سيران كليك هذا واحد سير تدك أودينس وحران ما يعني dadka ku xiran muuqaalka in ay ka faa'iidi karaan u sameeyay marka hadda waxa kulweyn muuqaalkeena maanta dadka anfacday aad iyo aad ay ugu maasan tahay sabootitaada muuqaalkan aad iyo aad ugu fiicantay taageerida channelka waxaan ku leeyahay aad iyo aad ugu maasantay mar walba joogtid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta waxaan dhiga doonaa qaybtii baradkaaga ah ee koorskeena ah ChatGPT marka horta marka koowaad ChatGPT waa soo dhex galaysaa sign up baa soo sameynaysa hadda waxaad aragtaa meel ay ku qoratay create image analyze image make a plan summarize iyo more kana surprise me code help me write and analyze data waxaasoo dhan ayaad arkaysaa marka hadda waxa lagu soo daray qayb ahayd voice mode kaas ma isticmaalno hadda si caadi ah la hadlaynaa hey wallahi markuu hadda inoo jawaabo oo dhaho hello waxaan leenahay make a full responsive work marka hadda waan sugaynaa website-ka siduu nagu sameeyo code balene baleenahay okay marka home selection-kii portfolio wixii dhan ayuu sameynayaa okay as you can see waka HTML-kii iyo wixii dhan soo qoray okay hadda uma baahnid inaad HTML iyo CSS wax ku soo samaysid waka hadda website-ka waxa lagu sameeyay just a minutes marka ka website aad code ku soo qoraysid kan waxa isticmaalay dadka coderiska isticmaala Visual Studio Code-ka marka dadkaas oo anfacaya marka hadda uu sameeynaya wasiir sugeynaa ilaa xogaa waka halka manipulate to dhamaanayo wow that's crazy man yo there's another level as you can see right now wow full responsive okay halkan waxaan dhahay supported to language fix bugs add logos iyo add comments so yeah waka hadda website-ka dhammaan noo soo sameeyey halka markaa waxaan kale leenahay halkan hadda waxaan leenahay make a full design about my brand okay ani halkan waxaa ku soo qoray make a full design about my brand marka design dhammaystiran ayuu ka samayn doonaa brandkayga oo uu eegaya meelaha qaar ayuu saxaya website-kaas dhan ayaa meelaha qaar baan ku dhahay sax waa ka imka saxaya as you can see right now meelaha eg border radius kaasoo kala hadda uu saxaya meelaha qaldan you see waxyaabo badan buu kusoo daray analyzing buu sameynaya so ChatGPT hadda coder tahay sidaas ayuu isticmaalaysaa hadda kusoo gudubno codernimadan
dhahno thanks halkan dhaho new chat haddii aad tahay ama yacni aad doonaysid inaad promptiyo iyo wax ku samaysid sida aan kuu sheegay haddii aad website-kan oo kale isticmaalaysid ama image aad doonaysid inaad soo generation garaysid hadda Leonardo AI ayaan doonayna inaan kusoo generate garayno image marka ChatGPT waa soo dhex galanaa haddana hadalkiina waa iskala bilaabanaa hey good baa iska leenahay waxaan dhahaynaa make me a text prompt of ChatGPT image marka hadda image sida ChatGPT oo kale aan sameynaa ayaan rabnaa so you can see the prompt marka soo qaadaysa promptka waxaa la imanaysaa Leonardo AI xasuusin gaabkii oo iska soo close gareynaa image creation ka imanaysaa qaybta image kana creation ku qoran tahay qaybta marka timaadid halka ay table prompt u leey soo qoraysaa waxaana raacinaysaa si aan ku soo sheego waxa raacinaysaa halka dama raacinaysaa hyper realistic advertise sidoo uga dhigo image-ka mid yacni la rumaysan karo inaan AI lagu sameyn okay marka dhinacyadan size-kii waad ka soo dooranaysaa size-ka saasa ka dhignay saan ugu sii badan size-kaasa ka dhignay marka yacni waad arkaysaan website-ka inta free-ga ah oo fast generation-ka image-yada iyo medium-ka iyo small-kaas ayuu leeyahay marka waad aragtaan sababna AI saasa ugu isticmaali karta marka doonaysid inaad Leonardo AI wax ku soo samaysid okay marka kale aad doonaysid aad iska tahay ama aad doonaysid wax kale ku soo qortid halka create image waa dhahaysaa of mathematical creature in a forest iska dhigi karta marka sayniska dadka sayniska dhigta ayaa fahmi kara image marka loo diro inaad ku samayn kartaan yani AI image-kaas oo AI waa kula fahmiya okay you see marka hadda soo gudubno qaybtii codka ee cusub ee lagu soo daray use voice mode button halkaasna waxaad ka doonaysaa cod okay marka imika anaga microphone male computerkeena microphone male laakiin aad may gashanaysaa oo mayga caadi ayaad ugula hadlaysaa isaguna wuu kuu jawaabaya haddii aad aragtid dhinacan kale waxaa la dhahaa get advice ama make a plan advice arday aad tahay of a difficulty conversation waa problem dadka haysta okay marka waka all of those things waa idinka ka arkaya marka haddii yacni ama ChatGPT aad waxyaabo badan ka faa'iidi weydid waxaa jira program kale isagana la dhaho Gemini AI baa la dhahaa website-kan yar isaguna waa website area kuu soo sameynaya ma yacni ChatGPT oo kale u shaqeeya upload image isaga ardaydu kan aad u anfacaya waayo ChatGPT ardayda si fiican ma fahmayo kan aad buu anfacaya السلام عليكم maadaama aan soo dhignay qaybtii koowaad ee course-keena ahaa ChatGPT maanta waxaan dhigan doonaa qaybtii labaad ee ahayd video generation-ka laba website ayaan ku dhigan doonaa labada website waxaan kala noqon doonaa video AI iyo Sora AI labada website waxay ku kala fiican ayaan wada eegi doonaa marka insha Allah muuqaalka intaan bilaabo wax kale lecture muuqaalkan aad baa maasatay hadaba muuqaalkan waxaan ku kala sheegaynaa video generation-ka iyo sida waxyaabuhu u shaqeeyo video generation horta simple waa video la sameynayo adigoo wax editor
iyo waqti badan kaaga bixin videoga wax ku soo sameynaya AI adoo brandkaaga ama yani hada content creation tahay aad contactigaaga ku promote garanaysaa videodaas marka laba website soo kala isticmaalno waxay kala noqon doonaan in video AI iyo sawir AI labada website maxay kala duwan yihiin farqi u dhaxeeya hadda muuqaalka ku wada arkina in video AI waa website aad ku qoraysid text to video ka dhigay marka website-kaas waxaan ku raacnaa background music transitionadii iyo music everything uu ku wada raacnaa halku sawir AI ku sameeyna clip yar oo aan sawsi banay isaguna laakiin ku fahmiyo videoga iyo daqiiqad ku sameyn kara image soo qaadan karta video ayuu ka dhigi kara image-ka marka maxaan ku baranaa inta ku guda jirno video generation waxaan ku baran doonaa sida video loo sameeyo sida AI sida video loo sameeyo laba sida AI aad u fahansiin kartid video u baahantahay iyo saddex si aad u promote gareyn kartid videodaas ama meel walba u soo dhigi kartid haday noqoto social media haday noqoto brandkaaga haday noqoto artist ku sameeyay waxa soo dhanaya ku wada baran doonaa marka video AI laga hadlayo iyo sawir AI horta isla shirkadii waa soo saartay oo open AI ah laakiin sidaan lagu soo sharxay way yar kala duwan yihiin oo video AI wax sameynaya video yar dhaadheer wala 16 mirir 20 mirir video dhaadheer buu sameynaya halka sawir AI sameynayo video yar oo gaaban oo image-ka ka dhigi karo video labadaas oo dhan waxaan ugu soo kala sharaxay qaybta vertical-ka ah warahmatullahi ta'ala barakaatu kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta sidii aan ku soo dhignay sidii hore iminka waxaan dhigaynaa qaybta vertical-ka marka website koowaad maanta soo galnaa waxaan noqon doonaa video AI website-kan in badan ka sheekeynay laakiin maanta ayaan nid say step by step sida loo galo website-kan aad ugu sameeyay kartid video-yada marka hadda waan soo galnaa login baan leenahay ana almost hore u sameysana marka hadda login ma dhaaya kadib hadda marka soo login garanay hadda halkan sida aragtid wuxuu leeyahay give me a topic or my some detailed instructions in any language marka videoga marka generate gareynsid halkan ayaad soo qoraysaa sababta generation gareynsid iyo waxyaabaha sameeyay marka hadda dadkiisa waxa arkaysaa create short video make explain a video create animated film use my script work follows iyo brightness marka hadda waxaan dhahaynaa create short video halkan marka soo gashid halkan waa videoga halka ugu soo horeeya noqonaya topiga waxaan dhahayaa fitness okay halkan waxaan dhahayaa stocks waxa soo qaadanayo only social media generated images and background music language-ka background music raacaysa halkan waxaan dhahaysaa automatic text raacin music performance okay marka halkan soo dhameysay continue waa leenahay marka hadda marka intaas soo settings soo sameynay oo isagoo automatic qolka ugu soo qoray generate video waa leenahay marka hadda iska suginaa intuu videogeena noo dhameystirayo waxaan soo galnaa website-keena labaad ee ahaa sawir AI sawir AI waa soo galnaa okay marka hadda sawir AI waa soo galnay anagina marka isagana sign up baan ku soo sameynaa insha Allah login baan leenahay marka sawir AI soo gashid waxa arkaysaa inuu balaag ku weydiinayo marka skip baan leedahay video hadda tutorial aan sameynaa isagana yani sida video AI maaha waxyaabo explore marahayo marka halkan videoga waxa ka leeyahay halkan soo siskii waxa ka dhignaa video online halkan number leenahay presentation xaraba aanay oda kuwa kale fastest ka soo dhalaysan videoga waxa ka dhignaa mid soconaya 20 second oo kaliya okay marka waxaan leenahay storyboard-ka noo soo tus saan isticmaalno okay way marka halkan focus good way oo ka soo baxayna
story everything halena markaa iska changes iska soo baxay like bad markaa reviewgeena waxaan leenahay fitness unkaa yani inuu wax badan sii qoqorno maadno fitness uma dhahayna kaada marka quality-ga yani aan ugu sameynayaan ayaan eegaynaa oo please by uu leeyahay generate videos marka isaga cancel bas lahaynaa fideynaa sore AI isagu yani waa lacag marka waxaan leeyahay iska day insha Allah in video marka soo ugu soo noqon hadana durationka halkaasaan doognayna soconayo 1 minute baa leenahay waxaa dhaa luukan fiilkan waxaa leenahay clean platformkan waxaan ka dhigaynaa YouTube shorts continue waa leenahay marka hadduu iska sugaynaa inta noo soo sameynaya sugaynaa kabacdi waan eegaynaa siduu nagu soo sameeya insha Allah dad hadda aragtaan yani wuxuu soo qoray creditskii wuxuu ka dhamaaday markaa lacag bix okay try waa leenahay dib baan u eegaynaa credit badan baan aad u isticmaalay waxyaabo fara badan baan ku generate garay marka haddana wuu natiijay insha Allah marka maadaama aan qaybtii loogaana soo dhamaysanay kooraskeena maantana waxaan baran doonaa sida loo sameeyo codadka ama yacni adoo cod duubid sidaad cod u samayn lahayd qaybtana waa kooraskii waa qaybtii saddexaad ee kooraskeeni ahaa AI marka qaybta saddexaad waxaan ku baran doonaa dhammaan sida adoo cod duubin aad cod AI uga isticmaali kartaa ama wax shaqaa qaba marka waxaan isticmaali doonaa laba website oo caan ah laba website magacooda inima sheegaya laakiin hayoo dhicina insha Allah waxaan nii sharaxayaa sida u shaqeeyo doonaan labada website iyo sida u shaqeeyo cod samaynta marka laga hadlayo dadka AI audio generation kuwa waxyaabo ugu muhiimsan marka aad tahay content creator marka adii haddii codkaaga aanad ku kalsoonayn ama codkaaga aanad ugu talagelin brainyo wax ku xiriisisid ama aad doonayn in la maqlin wax ku qaban kara shaqadaas AI saddexda qodob aan kaga hadalno saddexda qodob oo anfac ku leeyahay yani wax shaqaa kaaga baxay waqtigaaga baxayo textigaaga waa lagu diyaarin karaa oo textka scriptiga diyaarsan lahayd ama yani waxaad brainka lagu xaysiin lahaa waa lagu diyaarin karaa eeba codka waa lagu bedeli karaa iyo codka bla noise reduction aan waxba lahayn marka codkiyo nadiif ah ayaad ka wada anfici doontaa okay marka horta number 1 marka laga hadlayo generationka uu laba website mid waa lacag bad bixinaysa oo subscription ba sameynaysa qayb free uu leeyahay marka laga hadlayo audio generationka Ilaa Labis wuxuu leeyahay qayb lacag ah iyo qayb aan lacag ahayn marka isaga textiga soo qoraysa textiga lagu qorayo aad soo qornaya codkana waxa ka dhigi kartaa cod female ah codkana waxa ka dhigi kartaa cod male ah marka aad ku xirantay codka iyo sida isticmaalaysid السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانت روح قالنا قيبتي بروتوكولka ee koorskeena ahaa ChatGPT chapter maxaa 3 oo qaalnay audio generation ka marka muuqaalkeena maanta website-ka koobaad aan kaga soo areyno wuxuu noqon doonaa Ilaa Labis oo soo gelaysa marka waxaad ku soo qoraysaa Google-ka ilaafalabis.io kabacdi waa soo gelaysaa website-ka oo sanu kugu soo baxaya website-ku marka waxa dhahaysaa get started okay marka tiraahid get started sign up ku soo sameeyaysaa kabacdi waa soo gelaysaa marka shaashada ugu horeysa sanay noqonaysa marka aad soo sign up gareysid kabacdi marka halkan waxaad tagaysaa meesha la dhaho text to speech marka qaybtaas waa qaybtii hadalkaaga ka dhigisay cod marka halkan waxaan dhahaynaa maxaa dhahaa halkan erayadanba soo qaado halkan waa qaybtii aad ka soo doonaysa codka in a quiet village where the sky brushes wad maqlaysa codkaas marka cod waxaa jira lacag ah sida kuwaas oo kale waa lacag codkan oo kale marka cod free jira codka ugu caansan aad maqashay waxaan u maleynayaa in noqonayo codkan waayo codka ugu badan ee la isticmaalo marka hadda generate baan leenahay iyadoo cod aan isticmaalno kabacdi
sana ayuu noqonaya. In a quiet village where the sky brushes the fields in hues of gold, young Mia discovered a map leading to forgotten treasures. Okay, marka isagu wuxuu leeyahay subscription waxa la dhaho oo markaad in badan isticmaashadana yani codad badan ku generate gareysay ka bacdi ayaa uu ka dhamaanaya. Marka halkaas aad ku aragtiin 94300 credits remaining. marka 9430 ay lagu ogoliyay xadidka. markaas bisha dhan xadidkiisu waa intaas. marka Ilaa website-ka ka fiican marka aan ku sheegayo yani website-yada audio generation ka sameeya waliba kuwa free-ga ah. marka website-kan waxaa la dhahaa Haliyo AI. marka website-kan ayaa ah website-yada ugu fiican marka laga hadlayo maxaa la dhahaa audio generation-ka. okay, website-kan soo aragtid halka waxaad arkaysaa library dhammaan codadkii oo dhan. marka adii waxa kugu xidhantay codka iyo waxa gentle teacher baan. Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Okay. marka adii codka u baahantaad eeganaysaa adult baad ka dhigaysaa codka, genderka male baad ka dhigaysaa, accent-iyana waxaa ka dhigaysaa waxaad u baahantahay cod uma dooranaysaa ani kaas ay dooran kaasaan doortay. marka halkan qoraalkaagii waad soo qoranaysaa hataa imika qoraalka soo koobi karayno aan kusoo besti karayno. marka codka imika ku besti karayna generate speech balane. In a quiet village where the sky brushes the fields of hues of gold, young Mia discovered a map leading to forgotten treasures. Little did she know, a cat was in his house secret. It was the guardian of the map tasked with guiding. maanta asalaam calaykum. maanta waxaan gelinayaa qaybtii afraad ee koorskeena maanta, laakiin qaybtan afraad way ka duwan tahay qaybihii hore. waa qayb xamaasideeda wadata waayo waxaan baran doonaa sida website-yada loo sameeyo. in badan aan markaa xasuusto 2021 waa kii website-yada sida loo sameeyo way adkaayeen, laakiin hadda in just minutes bro you can make a full website in just minutes. marka maanta muuqaalkeenan saasaan kaga hadalnaa theory-ga ugu horeeya, haddii kale practical inta ka dhigno ayaan theory-gana sharaxaya. marka qalinkaaga iyo bugaaga soo qaado website samaynta waxyaabo badan baad maanta ka faa'iidi doonta aanad hore u maqleen. insha allah aan bilownaa muuqaalkeena maanta. haddaba qaybteenan koowaad waxaan kaga hadlnaa what's website building ama website developing ama website making. waxaan dhihi karna waan eegi karnaa. marka waa maxay website samayntu? website samayntu waa simply website, yani waxa loo yaqaano website waa simply waa platform ama yani meel laga soo booqanayo oo la ogaanayna au meeshaas ka leedahay ama yani website-keena adu iska leedahay. markaas qeexitaan badan oo si garayo. marka adu website-kaas la dhahaa. website-yada sidee loo sameeyaa? horta hadda laba nooc bay noqotay. marka hore awal hal nooc bay ahayd. haddayna qaybta koowaad oo ah inaad course samaysid oo adu website-ka laftirkaaga adu samaysato gacantaada ku samaysatid, iyo qaabka labaad oo ah inaad AI uu kuu sameeyo muuqaalada ama yani kuu sameeyo website-yada ayaan u jeedaa. marka labada qaab baa hadda loo gudbay oo labada qaab wey. wax saddexaadaan ka waramayno intee waqti ama waqti intee leeg ay kuu qaadanaysaa inaad website samaysid. website inaad samayso horta koowaad oo code ah waxay kugu qaadan kartaa maalmo. dee hadba waxaa isticmaalaysa rag baa isticmaalaya HTML iyo CSS JavaScript oo taa bir hore laga baxay oo bir hore ahay. haddana dad baa isticmaalaya React Town oo dadka badankooda React Town ba hadda lagu sameeyaa. in marka qaar Next.js lagu sameeyo iyo dee adu front end tools-ka oo dhan aad wala isticmaalaysid. iyo qaybta labaadna waa qayb aan aad u jeclay oo ka duwan sidan oo kale oo ah website yani lagu sameynayo adoo wax shaqo qaban ayaa website-ka la sameynaya. u fahamtay? marka website-ka adu waxaad sameynaysaa un qoraalad qoraysa yusuu ekaana area ma siinaysaa AI bal soo gudbinaysaa. marka website-ka AI ku shaqeynaya ayaa kuu sameynaya website dhammaystiran. so marka su-aasha ugu dambeysana lacag may tahay mise lacag mad ku bilaabi kartaa? maya, ka coding horta lacag kuma bilaabi kartid oo isaga si qaab free ah ayaad u sameynaysaa website-kaagii iyadoo cidna lacag ku weydiinaya. laakiin ka kale AI waxaa jira website-yada qaar oo lacag ah sida imka
10 web AI maxaa dhahaa drupal AI iyo website kale oo badan oo iyaguna lacag leh wax jira website free sida luka.com iyo wage AI marka wax ku kala fiican yihiin tayada keebaa tayo fiican marka ta ugu dambaysa su'aashan ugu dambaysa tiiriga kaga hadlayno taybaa tayo fiican tayada marka laga hadlayo coding horta tan adaa qortay tan kalena AI baa kuu qoray marka adi marka imagine garaysid inkastoo hadda uu update si weyn soo socon doono oo adoo yani koodhka AD-diisa bar qoraya oo hadda koodhka laftarkiisa adoo ma wada qoraysidba bar AI baa kaa caawinaya oo ChatGPT baa jooga oo bar caadiya kaa caawinaya bar kalena oo waxaa kaa caawinaya awoodda adiga adaa iska caawinaya marka tayada waxa ku kala fiican yihiin ani markaan eego website-ka AI lagu sameeyo yani imagine-kaagu ku xidhan imagine-kaaga hadda AI wax walba aad imagine garaysid uu samayn karaa laakiin sidaad u rabtay baa marmarka qaar aanay noqonayn so saa rabtay haddaanay marba noqonayn hada kuu xidhantay yani kama aqbali kartaa website-ka laakiin ka koodhka adaa waqti ku bixiyey oo kama dookhaagii adaa waqti ku bixiyo aqoon badan ayaad u leeday marka haddaba insha allah qaybta tiiriga intaas kusoo dhammayn doonaa haddana waxaan dhigan doonaa bartikaal ahaan sida lagu sameynayo website-ka marka hadda waxaan haysanaa 3 website 3 website hadda nigu dul tishaabinayaa website-ka ugu horeeya aan haysano wuxuu noqon doonaa moprice.com website-kan ayaa ah website free ah marka aanoo baarbaarayaan ayaan hadda arkay marka website-kan ayaan ku qoraynaa halkan portfolio website ayuu ma dhahaynaa markaas ma dhibayno portfolio generate with AI baan leenahay kabacdi imika waxaan dhahaynaa generate website dawada aragtaan website-kii sida lagu sameeyey halka markaa wax adaa ka bedeli karaa oo yani edit baad ku samayn kartaa website-ka laakiin you can see website-ka wax lagu sameeyey muddo 2 marar gudahood ayaan ku sameynaa website-kii dhammaystiran marka halkan waxyaabaha waad ka bedeli kartaa images-kana waxaad ka saari kartaa dee wakaas saasaad ugu marka portfolio dhammaystiran ayaa waxaad ku samayseen just minutes you see hataa way badan tahay oo yani wax jira waxyaabo fara badan ku jira marka workii aboutkii iyo contactkii hataa everything landing page-ka iyo waxyaabahaas oo dhan waa ka hadda inoo sameeyey so website-kan ugu horeeya waa kusoo sameynay moprice baa la dhahaa website-kan hataa wuxuu leeyahay qaabkii responsive-ka ahaa mobile view-gii haddaan u sameynay waa ka hadda isagu mobile view-gii so now that's good halka website-keena ana hadhow baa iska isticmaala insha allah website-kan website-ka labaad ee maanta ku xiga muuqaalkan wuxuu noqon doonaa studio design website-kan ayaa maanta anoo baarbaaraya 3 website boo ni kala sharxi doonaa website-kan wuxuu kamid ahaa website-yada free-ga lagu sheegay marka kastoo price leeyahay oo aan arko inuu price leeyahay laakiin haddana waa ku samayn karnaa website-ka sayinga apple leenay waska soo register gareynaa kabacdi ayaan soo dhexgelinaa oo ku generate gareyn doonaa image-yadan u baahanay marka hadda iminka soo sign up gareynay so halkan waxaad aragtaa for brand cities agency individual marka ani iminka individual baan yahay oo agency ahaan ma yihi ama client iskaas iska doona ama site iska afartaa mid kamid ah aday noqon kartaa marka haddii ana website laga soo booqdo marka waxaa leeyahay agency ma yihi individual-ka ka dhig kabacdi nagas baan leenahay which describes you maxaa dhahaa founder iyo maxaa dhahaa web designer graphic designer deh founder ne start design marka hadda design waa soo gelinaa أنا حسلي ويب سايت كان يعني ديزاينka adaa gacantaada ku sameynaya dadti markaa soo dhex galayso Hi. Nhỉ? Ừ. marka website-kan yani adaa sii dhex gelaya oo sii eegaya
ani waqtigan ugu yar marka website-kan waa kan ala design garaysanaya website-kiina ugu dambeeya maanta ku isticmaalno noqon doonaa dora.com baan isticmaalnaa website-kan ayaa ah website yani 3D kuu sameynaya website-ka oo website-ku wuxuu noqonaya mid 3D ah so adag markaa try it now baan leenahay ama get started ayaan dhahaynaa kabacdi sync up buu naga rabaa continue with Google baan leenahay halkan waxaan arkaysaa inuu tutorial noo sameeyey marka tutorialkan iska yar daawaynaa oo waa shirkaddu waxaysiinayaa way la tahay okay generate GC it is oh it's really cool marka get started about it okay halka waxaan dhahaynaa website-ka ugu horeeya aan samayn doono wuxuu noqon doonaa ama page-ka ugu horeeya yani isagu malaa page si wax ku xisaabin doonaa ka landing page waxaan leenahay for maxaa dhahaa kickstore maaha waxaan leenahay for portfolio web baan leenahay ama portfolio web yes like this yes design-ka halkaasuu kaa tusaya marka waxaa leedahay generate to previews marka halkaasuu preview nagu sameynaya kabacdi ayaan doonaynaa marka credit uu nagu xisaabinaya yani 60 credit ayaan leenahay haddaa invite a friend sameynana waxaa nagu darsamaya 200 marka adi saaxiibadaaba u shirkadaysa website-kan waad ku dhahaysaa website-ka saa ka samee website-ka waa noocan waxyaabo badan buu ku sameynaya kabacdi waxaad helaysaa 200 oo credit oo isticmaali kartid marka hadda halkan wuxuu leeyahay 25 second ayaa nagu qaadanaysaa like word after 25 second kiya oo iska sugayay intuu gaarsiiya and that's crazy marka labada mid baan dooraynaa kibaa nagu soo baxay tulo kana nagu soo baxay misakan okay kana halkiisa hoose waa fiican yahay kana nagu soo baxay marka generate baan leenahay kaasaan dooraynaa kabacdi staging out your layout isaga markaa uushiisa qabsanaya oo iska sugayna anaguna you see 80% kabacdi halkaas halkiisa arkaa website-kii yani website-ku aad buu qurux badan yahay marka halkaa ka arko laakiin waqti badan ugu qaatay malaha waa khad internetka speedkiisa la tahay waa data ku isticmaalaya marka speedkiisa la tahay so that's good wow another level this website is another level bro good wallahi website waa ka good weeye marka hadda zooming baa rabtaan zoomingkana waa soo zoom garaynaya wow the website is another level marka website-ka waa la arkaa waxaan dee AI baa kuu qabanaya shaqada maanta kadib u baahnina course miss AI waa shaqadan dhan kuu qabanaya marka muuqaalo kale jiraan website kale kaga soo leeyahay website-kan yani ilaa hadda aad buu HB website-kan rate-ka waxa si laatay dutan waa website aad HB weey like sida loo sameeyay in just prompts and seconds okay marka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته maanta waa qaybta ugu dambeysay course-kan wuxuu noqon doonaa qaybta ugu dambeysay waxay noqon doontaa image generation marka insha Allah kuka insha macluumaadka soo qaadsan muuqaalkan blog soo daba course-kan qaybtan shanaad waxaan kaga hadli doonaa image generation-ka iyo siyaabo shaqeeya horta warga la hadlay image samaynta ma yani sawir samaynta waxay noqonaysaa saddex qodob kaliya laga hadlaya sida image-ka loo sameynayo iyo sida loo fahansiinayo AI inuu image-ka u baahan tahay ama maskaxdaada ka qabsatid iyo ugu dambeyntii free ma yahay ama free ma aha saddexda qodob ayaan kaga hadlnaa saddexda qodob marka koowaad waa maxay image samayntu waa simply background ama haddaad aragtid background iyo ama image sameeyo online oo soo post garayo image-ka ideadeeda ayuu ka soo baxaya ama yani waa sawirkaas oo qofku feedback ka bixinayo ama sawirkaas oo qofku indhihiisa soo jiidan kara marka qaybtaas waa qaybtii koowaad qaybta labaad oo ah yani image samaynta sida AI loo fahansiiyo
horta AI imika wuxuu leeyahay qayb image generation oo website badan baa jira oo ku shaqeeya AI oo image sameeya qaar waa free qaarna waa qaar lacag la bixinayo marka kuwa lacagta la bixinayo yani waa qaar image high quality ku sameeyna hada background u baahatay hada logo u baahan tahay inkastoo logo waxaas ka duwan tahay hada u baahan tahay maxaa lahaa adoo de image nooc doona waxa oo siisku doona waxa image horta uu ku generate gareynaya oo image uu ku sameynaya so image sameynta waa qaybahaas oo kaliya leeyihiin يعني برتكال ahaan buu badan yahay marka practicalkan qayb geli doona insha Allah oo yani baytan waxa saraayay practicalkii iyo maxaa la tiiriga marka waxa ku leeyahay qayto practicalka let's go marka waxa soo galnaa website-keeni ugu horeeyay website-ka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa insha Allah Leonardo AI website-ka ayaan soo dhex geli doonaa sayinga box soo sameyn doonaa halka free favorite baa leenahay kabacdi saying up key get started balani say gamble ku dul sameynaa continue walanahay gmail ka doonaysa marka aad ku xidhanaysid continue walanahay marka ChatGPT kama maanbi kartid haddii aad isticmaalaysid Leonardo AI way isaga ku fahansiinaya halka marka waxaan doornaynaa magacii let's go walanahay agreed ay waxaan waan taabanaa marka waxaan leenahay naga blog halka no thanks baan leenahay kabacdi image creation ka setagina marka qaybta image lagu sameeyo qaybta no thanks baan leenahay dhinacana finish baan leenahay marka halkaas waa promptigi ChatGPT oo soo weydiinaa promptiga oo waxaan ka dhigaynaa in eegina marka tusaale ahaan hadda waxaan doonayaa ku qoro technology iyo maxaa la touch waxaan ku qorayaa adu touch image waxaan ku qorayaa marka are you asking buleede namu fahmin yes balana yes namu fahmin marka promptiga yar maxaa la dhahaa ayaan soo koobi garaysanaa kabacdi marka soo koobi garaysano koobi baan leenahay control C kabacdi waxaan imaanaa halkaa tiibu prompt leeyahay prompt halkaa control V baan leenahay kabacdi maalinta halkaa waxaa leedahay 150 credit halkan markaas taniska ka badbedelaysa halkan ani waxaan ka dhiganayaa anime ama cinematic meelahaas ka eegaya cinematic ama anime ama cinematigas labada mid uma ka dhigaya adu cinematigas iska soo dooranayna halka marka stylekii cinematic buu ka dhigay halka ma badbedelina high baan leenahay concertigeeda high baan leenahay marka fastigas halkaana 16 waayo waxaan ka dhigaynaa 6 bitrate halkaana mediumka ayaa iskaga daynaa number of images kana kabacdi waxaan leenahay generate marka hadda iska sugayna intuu noo generate gareynayo imagedaas oo wax ku sameynaya muddo yar iska sugayna kabacdi hadda wad aragtaan si imageda u sameeyey marka images adida wad arkaysaa kuwada tegayo siduu inoo fahmay yani malaa wax kaligay technologyga maalmaha soo socda iyo sanadaha soo socda website kale waa soo gelina wax noqonaa ideogram website-kan ayaa isaguna website yani qayb free leh marka isagana sign up box soo sameynaa sidii kii hore kale continue with Google balane by Gmail ka soo dooranayna waxa leenahay continue way ideogramkaas hadda marka soo galno username baa soo sameysana iyo name marka create profile baa leenahay kana waxa leenahay insha Allah start creating بعد marka halkaas ku qoraysa waxa doonaysid promptigiyo kalaan soo koobi garaysana halka autodaas waxaan ka dhiginaa onteedaasaan ku diinaa
qaybta raatiyana 16 baa ka dhigaynaa ama 9 to 16 labada midun halkaana public baa leenahay modelkana waa stastiga kalarada markaa kan kalarada doonaysa iyo kalarada way ekaanayaan marka kalarkaasna ugu fiican kalarkaasna iska dhignaa generate baa leenahay marka isaguna waqti iska qaadanayo iska sugaysa intuu waqtiga yar qaadanayo labadaasan eegana ka fiican ee sida fiican ugu sameeyay yani shayga sidaan ugu baahnayn marka labada ayaan eegana ka fiican marka labada waxaad u malaynaysaa malaha kariin oo si yar aad noo sii fahmay waayo wuxuu sii raacay dadkii iyo teknolojiga soo yar ee kaa lahaa waddooyinku say ahaa lahaayeen so labadaa waxaa is leeyahay wax ka yar fiican airdgram marka labadaas ayuu ku joogmaya insha allah kooraskeena ama yani halkan uu kusoo gabagaboobayaa haddaa daba muuqaalka dhamaystay waxaan leenahay aad baa mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu